khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goor uu soo idlaatay ayuu kaga hadlay dhowr arrimood laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa saddex qodob oo ugu waaweyn oo ah kuwii maalmihii ugu dambeeyay dalka ka taagnaa arrinta Itoobiya cabashada bajaajleeda iyo dadka ganacsatada ah ayaan halkan kula wadaagi doonaa soo wada saaxiibeel hadii muuqaalkii soo gaaray si shirkada oo saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtideena noogu reeba oo waa muhiim waxaana Cumar Goox aynu ku bilownaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhow dadka Soomaaliyeed la hadlay waxaana waxyaabaha uu ka hadlay koow ka ahaa arrinta bajaajleeda oo maalmihii la soo dhaafay si weyn uga taagneed caasimadda Soomaaliya sidoo kale qodob labaad ayaa jira oo ah cabashada ganacsatada arrimaha canshuuraha oo iyadana la sheegay in loo bedelay system digital ah in canshuuraha ay ku bixiyaan sidoo kale arrinta Itoobiya oo ahayd iyadana mid maalmihii la soo dhaafay si weyn u taagneed ayuu madaxweynaha ka hadlay waxaynu ku hormareynaa cabashada bajaajleeda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida khudbadiisa ku bilaabatay waxa uu si weyn uga hadlay arrinta bajaajleeda oo uu ku tilmaamay in meelo badan oo kamid ah caalamka aysan wax bajaaj ah ka shaqeyn laakiin Soomaaliya ay u ogolaadeen in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideysato iyaga oo og in dhibaato ay ku tahay dalka haddana dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u tiro badan oo qaarkood shahaadooyin kala duwan oo master ilaa heer PhD haysta ay ku shaqeystaan waxaana sidoo kale uu tilmaamay in aysan raali ka ahayn dawladdiisu oo uu isagu hogaamiyo in la dhibo qof bajaajla ah oo maalintii oo dhan ku shaqeeya laga yaabo in uusan helin $20 misna wax ka yar ama wax ka badan intaba waxaana uu tilmaamay in cabashadooda ay soo gaartay wax badanna ay ka qaban doonaan wasaaradda maaliyadda ay kala xaajoodeen iyo cidda canshuuraha u qaabilsan intaba waxa sidoo kale uu tilmaamay madaxweynaha cabashada dadka ganacsatada ah ee dhawaan la kulmay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu sheegay in ganacsatadaas qayb kamid ah ay xilligan bilaabeen in ay soo gudbiyaan oo waliba ay sameeyaan cabashooyin misna carqalado ay ku muujinayaan sida ay markaasi uga raaliga ahayn in canshuuraha habka digitalka ama systemka digitalka ah lagu qaado madaxweynaha horey waxa uu u sheegay inay jiri jirtay in canshuurtaasi la qaado oo cidda qaadaysa iyo halka la gelinayo aysan ogeyn laakiin hadda markii uu yimid dawladdiisu ay bilowday in system digital ah in lagu qaado canshuuraha oo ay dawladdu si habsami leh uga qaado dadka Soomaaliyeed waxaana uu amray in mar kale dadka canshuur bixiyaasha ah ay canshuuraha bixiyaan canshuurta la bixinayana wax loogu qabanayo askarta ku dhamaanaysa furimaha dagaalka iyo kuwa ku dhamaanaya qaraxyada waxa uu sidoo kale tusaale u soo qaatay qaraxii maanta ka dhacay degmada Daynile ee gobolka Banaadir ee askarta ku dhawaad 7 qof ku geeriyootay iyo inta ka badan intaba waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday in yaanyada maamada wadada ku gadeysa iyo midda caanaha gadeysa shilimaadka yar ee laga soo qaado uu askarigaas qaato iyo sidoo kale kuwa xafiisyada dawladda jooga arrintaas halkaas ayuu kaga haray madaxweynuhu in canshuurtaas la bixiyo horeyna ay u jiri jirtay laakiin hadda kaliya laga dhigay habka digitalka ah ee aysan ahayn lacago AVC-ga iyo waxyaabaha kale ee dadka propagandada loogu sheegay in aanay jirin arrinta ugu weyn ee madaxweynuhu ku dheeraaday waa arrinta Itoobiya heshiiskii Ankara ee dhinacyada Soomaaliya iyo Itoobiya ee natiijo la'aanta ku soo idlaaday ayuu ku tilmaamay in Itoobiya wali aysan aqoonsaneeba in Soomaaliya xor ay tahay waa sida uu madaxweynuhu sheegay arrinta kaliya ay rabeen ay ahayd in Itoobiya ugu horeynba ay garwaaqsato in Soomaaliya ay tahay dal xor ah dadkiisu xor yihiin wax walba ay iyadu awood u leedahay inay qabsato iyadoo hore ay u maqnayd Soomaalida iyadoo intaas ay maqan yihiin oo wali ay ku daba jireen inay ka daba tagaan ay Itoobiya xilligan wali daba taagan tahay in Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhalatay 1960kii ay wali leedahay cad ayaan ka soo jaranaya iyo dhul ayaan ka qaadanaya arrintaas aysan marnaba dhici doonin waxa uu tilmaamay in dirisnimada Soomaaliya iyo Itoobiya cidna aysan u doorin oo aan Allah ka ahayn waxaana uu sheegay inay mudan tahay in Soomaaliya gobonnimadeeda la tixgeliyo lana dhowro iyo in Itoobiya gobonnimadeeda la dhowro horey murano la xiriir dhinaca dhulalka oo waliba dhinaca badda ah ayuu sheegay madaxweynaha in Soomaaliya looga guuleysan waayay haddana aysan raali u ahayn ama ku ahayn in looga guuleysto ayna ka hari doonin iyadoo Itoobiya aan wada ognahay in dhulkan Soomaaliya ama dawlad deegaanka Soomaalida la yiraahdo ay ku soo daabushay ciidamadeedii ugu badnaa
saldhigyo dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo sameeyeyna ay ka samaysatay oo iyadana la soo dejiyey ciidamo kale oo hor leh oo Ethiopian ah saldhig military looga furay feerfeer iyo meelo kale oo qayb ka mid ah Soomaaliya ah dhammaantoodse waxaa la sheegay oo madaxweynuhu uu tilmaamay inay yihiin arrimo looga gol leeyahay in lagu cabsi geliyo dadka Soomaaliyeed khudbadaas ayaa intaasi daarneyd madaxweynuhu sidoo kale xaaladda guud ee Soomaaliya iyo arrimaha siyaasadda ayuu ka hadlay si gaar ah dastuurka iyo meelo badan oo waliba doorashooyinka ay ka mid yihiin oo qof iyo cod ah in dalka loo diyaarinayo intaas ayaana jeclayn inaan ku hakiyo